بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا محمد صلى الله سبحانه وتعالى الله سنسينا مثل الإسلام والإيمان. ثانيا بعد الله وحنا كان مهد علينا يا قبلها أو محسنات كأه أو لك الإرادة لول عبد علي عمر بغبغاني يا دقة عبد علي عمر بغبغاني lacagtii aasoo sadaqaysteen waa wareejinay sidii aad u soo dhiibteen kulay aad jecleedeen aan ku bixin aad u jecleedeen ugu bixinay kulay muraadkoodana Ilaahay u sakhiro muraadkooda waxaan leenahay Ilaahay u sakhiro aamin muraadkooda Ilaahay u sakhiro dambigooda dambaarka Ilaahay dhaafo meesha ka soo bixiyaan bedel khayr qab Ilaahay ugu bedelo waxay u soo niyeysteen ay u soo baxsadeen inay idinka aad u faraxdaan oo maanta galabta ay idinkaga farxiyaan ugu tala galeen markii iyagana muraadkooda Ilaahay u sakhiro dambigooda dambaarka Ilaahay dhaafo meesha ka soo bixiyaan bedel khayr qab Ilaahay ugu bedelo marka insha Allah kaamkan waa kaamkii oo marar badan tubadal waxa kamid ah waxyaalaha loo qabtay in tubi biyo loo geliyo soonkii in la afuriyay soonka kadibna mar qadal loo sameeyay marka ma sha Allah kaalin weyn waa ka qaadataan intaas in ka badan waan idinkaga rajaynaynaa insha Allah xil waxa lagu jiro roobada lagu jiro waxyaalaha u baahan yihiin bacaha kamid ah oo roobka ay kaga dagal lahaayeen marka insha Allah idinka sugayaan Ilaahay ka sokow Ilaahay wax ka sugayaan awalan wa thaniyan Ilaahay ka sokow dadka Ilaahay u soo adeeg Ilaahay wax ay ka sugayaan idinka way reer London qaasatan ilmahan agoonta ah oo maanta halka doolar aan u qeybinay waa ilmihii agoontii qaar kamid ah waxbarasho ma haystaan waxay u baahan yihiin waxbarasho waxbarashana waalidkii kama bixin karo wuxuusan ugu bixin karin dibkii shiditaankeeda oo dagaal kula jira marka waxbarashadana ma awoodo marka dhamaan ummadda muxsiniinta meel walba ay joogan qaasatan reer London waxaan ugu baaqayaa 10kan arday oo agoonta gadaasheeda ka muuqdo oo maanta aad ka farxiseen inaad kafaalaqaad aad u sameeysan insha Allah ilmaas ay kafaalaqaadaan ka warqabtaan waxyaalaha ugu muhiim ay u baahan yihiin waa laba shay waay inay cunto helaan iyo inay waxbarasho helaan marka inta kale waxay intaas hoos imaanayaan marka inaan kafaala qaadaan ilmahan agoontaan aan idinka rajaynaa sadaqada soo baxsteen Ilaahay idin aqbalo muraadkiin Ilaahay in sakhiro dambigiin dib waalidkiin Ilaahay dhaafo. Assalaamu alaykum.